barkulanka TikTok waa mid laga leeyahay dalka Shiinaha adeeg wadaagan video wadaaga ah oo ku saabsan xiriirka bulshada. Shirkaddan tiknoolajiyadda internetka ee ku taal Beijing ayaa la aasaasay sanadii 2012 waxaana loo isticmaalaa in lagu abuuro muusigyada gaagaaban, majaajilo iyo video hiba ah oo 3 ilaa 15 ilbiriqsi ah iyo cajalada gaagaaban oo 3 ilaa 60 ilbiriqsi ah. Kani waa Cabduqaadir Aadan Maxamed, madaxweynaha TikTok oo bulshadana magacyo kala duwan u garan og tahay. Wuxuu barta TikTok ku baahiyaa muuqaalo kooban kuwa oo maad iyo madadaalo isugu jira. Haddaba maxay tahay ujeedka uu bartan u asaasay? TikTok horta ujeedka u soo galay wax kale muusan ahayn. Waxaan u arkay hibada aniga aan leeyahay inaan ku soo bandhigi karo bartaas bulshada ee TikTok-ga. Walow xilliga aan bilaabay aysan ahayn xilli lagu wada badnaa, laakiin aan dhalina annaga ka team school ahaan markaan ku soo biirnay murtideennii iyo xigmadihii iyo waxyaabihii shactarada aan ku soo bandhignay markii la arkay dad yoogii Soomaaliyeed ee u soo bateen. haddana alxamdulillah waxa igu xiran dad ku dhawaad nus milyan u dhow. falcelin noocee ah ayaad la kulantaa? wallaahi haddaan horta dareenkayga aan kuu sheego mararka kala duwan markaa arko qof aniga iga da'weyn oo markaan ugu soo galo kale meel uu joogo oo ii istaagayo, wallaahi billahi waxaan dareemaa horta ilin horta indhiga waa soo istaagaan. waxaad sheegtay inaad tiraahday inaad tahay madaxweynaha TikTok-ga. madaxweyne markii la yiraahdo doorasho la gali jiray, yaa ku doortay xilkaas? xilka madaxweynenimo anaa marka hore ku qortay anoona caan ahayn president of TikTok. kadib waxaan go'aansaday in shirkadu ay soo tixraaci karto president of TikTok oo Ingiriiska ay yaqaaniin, walow luqadii Soomaaligana ay turjuman karaan, laakiin waxaan ka dhigtay madaxweynaha TikTok aan ku qortay. dhalinyarada qaar ee TikTok-ga isticmaasha rag iyo dumar isugu jira, dumarku waa ugu badnaadaan muuqaalo indhaha aanan u rooneen in ay halkaasi soo dhigaan. adigiina waxaad sheegtay inaad madaxweynihii TikTok-ga tahay, bulshada aad madaxweynaha adigu u tahay sidaad adigu sheegtay ma ka wacyigelisaa waxyaabahaas ay iyagu soo boostagareynayaan ama soo dhigayaan? horta dal walbo madaxweyne leh dad xun iyo dad wanaagsan ku nool. waxaa jiro balance loo isticmaali karo qofka si aad qalbigiisa aad u wareejiso oo si wanaagsan ah. insha Allah anaga dadku qasab inta soo istaagna dhihimeena heblaayo waa xunteesaan dheh, laakiin waxaa tusaynaa qiimaha qofka xun iyo qiimaha qofka wanaagsan. dhalinyaro fara badan oo barkulankan TikTok-ga ku jirta ayaa waxay lafturkooda u noqotay shaqo abuur, maadaama muuqaalo xayeysiis ah oo 60 sekiin ka yari ay bartooda soo dhigaan, kuwaas oo ay lacag uga qaadayaan shirkadaha ay markaasi u xayeysiinayaan. waa kan Bilaal Bulshaawi oo arintaasi sharaxaya. horta waxaa jira application fara badan oo lacag laga sameeyo. applicationadaasna waxay lacagaha looga sameeyaa qaab in AdSense ama xayeysiimo ay ku saaraan shirkadaha application-kooda isticmaalayso. way jirtaa dad siyaabo kala duwan uga faa'iideysto, ha ahaatee in la sameeyo xayeysiimo kale. marka barnaamijyo noocaas aan sameynaa mana aha wax oo wax weyn laga helo, waa wax bajaajtii iyo cabitaankii ka kaafinaya. Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yimani, wararka arrimaha bulshada Home Cable TV, magaalada Garowe. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u labisanaa, isku midna waanu nahay. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.